halgankii xornimo-doonka Soomaaliyeed waxaa loo qaybin karaa ilaa dhowr qayb oo kala ah Sayid Maxamed Cabdulla Xasan halgankii dheeraa uu galay bilowgii qarnigii 20aad iyo kii SYL oo aad og tahay adiguna aad goobjoog u ahayd halgankii dheeraa ay galeen waqtiga SYL ay halganka ku jireen ay ku doonayeen gobonnimada inay wadankooda gobonnimo ka dhalato maxaad iga sheegi kartaa wacyigii bulshada Soomaaliyeed xilliga runtii haddii aan ka hadalno halgankii ummadda Soomaaliyeed waxaan iraa karaa marka ugu horeyso 1920kii waxaa u kacay dalka halihey Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo daraawiishta hogaaminay ujeedadiisu ugu weyn waxay ahayd ummadda Soomaaliyeed inuu ka badbaadiyo ama uu ka hortago isticmaalka taasina door weyn ayuu ka qaatay maanta Sayid Maxamed Cabdulla Xasan gabayadiisii haddii la akhriyo ama gabayadiisa haddii la xusuusto waxaad ogaanaysaan ama ummadda Soomaaliyeed ogaanaysaa tusaalooyinka uu bixiyay hadda ayaan taagannahay taasaan ilaahay aniga waxaa ka mid ah inuu isticmaalka uu ka soo horjeeday inuu ku dadaalayay in ummadda Soomaaliyeed oo midaysan la helo taasina waxay ahayd fikrad uu baahinayay khaasatan daraawiishta maxaa yeelay daraawiishta waxay ahaayeen xoog oo isticmaalka la dagaalankan laakiin nasiib darro fursad weyn ma helin taasina waxaa dhacday dhibaato weyn buu la kulmay sayidka markii uu ka tagayna waqooyi wuxuu tagay meesha ilig la yiraahdo waxa nin Talyaani ah oo Pestalozzi la yiraahdo ay is arkeen oo ka sheekeynay wuxuu yiri sayidka wuxuu ahaa dawlad buu ahaa maxaa yeelay markii aniga aan u tagay sayidka intaan u tagin waxaan mari buu 6 control baan mari buu waxa liga sii wada kabaha iyo kaalsiyaasha taa liga sii wada markii aan u tagay anigoo saafi ah oo nimankii hoggaanka oo u haayay ii wadeen ii geeyeen waxaan u yiri maxaad u socotaa nin yahow Talyaaniga ah ma Ingiriiska ku soo dirsaday ee silbi taasi waxay muujinaysaa sayidka inuu ahaa halgame dhab ah inuu ahaaba muujinaysaa buug ku qoray ninkaasna marka aad isbarbar dhigto xilligii gumaysiga Talyaaniga ee dagaalkii labaad ee adduunka ka hor ee dalku ka talin jiray iyo xilligii dagaalkii labaad uu Ingiriisku qabsaday wadanka oo guud ahaan Soomaalida xagga tacliinta dhalinyarada Soomaalida waxbarashadoodu maxaa iska bedelay iyo xitaa marka la eego xilligii daaqiliyada tacliinta Soomaalida markaad eegto maxaa isbedelay islaam run ahaantii isticmaalka Talyaaniga horta wax la yiraahdo waxbarasho ma jirin maxaa yeelay Talyaaniga wuxuu qabay ilaa iskoola elementary shanta iskoola elementarine wuxuu u sameeyay wax kala ma aha inuu helo dad u tarjama Soomaalida af Talyaani ugu tari markii xafiisyada gaalada ay u tagaan dad ka tarjama oo faraku tiris ah ayay ahayd marka nasiib wanaag dagaalkii labaad Ingiriis baa yimid Ingiriis markii noo yimidna wuxuu bilaabay in fursad ummadda la siiyo maxaa yeelay Ingiriiska markii noo yimid waxa tatawuraad badan ayaa dhacay maxaa yeelay fursadii oo hore wax ka bedelan maxaa yeelay isticmaalka lama socon jirin kawa la'aana la socon jiray basaska lama raaci jirin laakiin Ingiriiska markii basaska waa la raacay wuxuu bilaabay inuu iskoolaad furo education department meel yiraahdo education department waxa joogay niman badan oo Suudaani ah oo ka keenay Suudaani dhulkaas ka keenay oo dadka Soomaalida si loo baro Ingiriis iyo Carabi khaasatan waxa jiri buug la yiraahdo Oxford oo loogu talagalay dadka Afrikaanka ah yaa la baray markii ka bacdina waxa tatawuraad baa yimid tatawuraadkii wuxuu ahaa niman dhalinyaro ah oo Soomaali SYL ah waxay arkeen Ingiriiska inuu fursad siiyay community Arab community nimanka la yiraahdo nafsi Italian community iyo Pakistani community uu siiyay fursad inay club ay sameystaan gooni u baxaan marka maadaama iyaga islahaayeen annaga Afrikaan manihi waxaan nahay Asian saadaraadada waxa loo ogolaaday meel ay ku kulmaan meel ay ku sheekaystaan meel wax ku cabaan markii la ogaaday dhalinyaradii SYL
oo iskoolaadkana dhiganaysay waxay fahmeen nimankaanba haddii loo oggolaaday annagana waa nala oggolaanayaa marka aan isku dayno inaan ingiriiska codsi u samayno club inaan samaysano 15 May 1943 ayay dhallinyaradu sameeyeen clubkaasi SYL maxaa aad isleedahay ka hor maadaama Talyaanigu waddanka ka jiray oo fursad ah u diiday inay club samaystaan oo ingiriisku gaar ahaan xilligiisii ay u arkeen inay xilligan dow tahay oo samaysan karaan maxaa yeelay Talyaani horta isticmaar buu ahaa ma ogoleenba markii ingiriiska u yimidna waxay isku dayeen inay codsadaan waa loo soo ogolaaday 13 waxaana xafiis oo meel yiraahdo club ka fureen sarta xaaji diiriye xirsi ayaa meel siiyey meeshaasay dhalinyarada waa isugu imaanayeen waxbay ku cabaayeen marka waxaa jiray meel kale oo library jirtay library waxa la oran jiray library-dii Ali Kaar guuleed nin liiraa joogay joornaalyada imaan jiray carabiya imaan jiray ingiriis ama talyaani imaan jiray marka meesha la tagayay waa laga faa'iideysanay markii clubka la joogay dhalinyaradii waxay arkeen in meeshaanay tatawuraad ay ka soo socdo markaasaa meeshii xoog loo soo galay markaa ka bacdi SYL way isbedeshay 1947 waxay noqotay Somali Youth League ay noqotay waxaad inooga warantaa dagaalkii dhagax tuurka ee rabshadihii ka dhacay magaalada Muqdisho inta aad ka ogaan karto wuxuu dhacay 5 Oktoobar 1949 dhibaatadaas xamar ka dhacday maxaa u sabab aad isleedahay yaase isku hor yimid oo dhagax tuurkaasi marka laga hadlo laga reebo gumaystii Soomaalida gudaheeda maxay u kala qaybsanayeen horta runtii SYL afar arrimood bay soo martay 1946 ingiriiska wuxuu ku soo rogay dadka ay Soomaalida ah Afrikaanka wuxuu ku soo garay wax la yiraahdo koodi macnaheedu waxa waaye in qof kastaba canshuur laga qaado ninka socda canshuur shilin bixi shilinkaasi waa koodi baa la yiraahdaa laakiin SYL waa ka hortagtay haddii ka hortagtay waa laga joojiyay arrin kala timid niman community Arab oo annaga walaalaheena ah oo aan isku haleynayni marka iyagana waxay sameeyeen xogaha khalada ay sameeyeen marka fardo inay soo koreen ayay afirdood soo mareen saafafna soo qaateen marka dadkii Soomaalida meesha joogay waa ka xumaadeen marka meesha laftigeeda dhibaato ka dhacday dhibaatadiina markii laga gudbay haddana dhibaato kale 1948 dhibaato kale ayaa na soo food saartay SYL waxa soo food saaray wax kale ma aha United Nationska afartii dawladood oo ku guuleysatay dagaalkii labaad ayaa xamar yimaadeen waxayna u yimaadeen inay ogaadaan ummadda Soomaaliyeed masiirkeeda inay ogaadaan markii masiirkooda inay ogaadaan ay rabeen markaasi waxa SYL iyo SNL waxay sameeyeen ummadda Soomaaliyeed shanta qaybood ahayd inay xamar isugu keenaan xamar isugu keenay markii xamar isugu keenay ballan United Nations ballan la lahaa 12 Janaayo 1948 markii la keenay waxaa dhacday iska hor imaad oo aad u xun yaa dhacday maxaa yeelay dadkii SYL waxay ku maqnaayeen dhagax tuur meesha la yiraahdo ay ku maqnaayeen maxaa yeelay bannaan bax weyn ayaa loogu talagalay in United Nations la tuso marka waxaa jiray qolo baro Talyaani ahaayeen oo ku soo duulay xaruntii SYL weerar ku soo qaadeen fallaaray la soo galeen gabar oo xawataa kale ku dhimatay rag kalena dhaawac ku gaaray marka raggii bannaan baxa u jiray oo bannaanka jiray ayaa yimid nimankii waa laga eriyay SYL xafiiskeeda marka go'aana la gaaray waxa Soomaaliya is dhameeyeen annaga waxaan nahay Talyaani waa Talyaani ku kacina xawataako marka fallaarta ku dhacday waxa ku dhuftay qof Soomaaliya waxa waaye nimankii soo duulay oo bannaan baxa
oo SYL ku soo duulay ayaa ku dilay Soomaali ahaayeen Soomaali ahayn waa barow Talyaani ahaayeen waa tahay waxaa la sheegaa in bishii May 1947 ururkii SYL xisbi ahaan looga dhawaaqay magaalada Muqdisho xisbiyo kale ma jireen dhowr xisbi ayaa jiray waxaa jiray xisbi la yiraahdo Digil Mirifle waxaa jiray Progress kuwa la yiraahdo waxaa jiray African Unity kuwa la yiraahdo marka waa badnaayeen todoba xisbi ayaa jiray xisbiga marka ugu awood badan wuxuu ahaa SYL waxaa ku xigay run ahaantii xisbiga Digil Mirifle ayaa qabay mid xoog leh maxaa yeelay way is arursadeen marka waxay ku dadaaleen inay xisbigoodii xoog ay saaraan ayay ku dadaaleen marka maxay aaminsanaayeen SYL iyo xisbigan kale ee Digil Mirifle maxay mabda'ahan ku kala duwanaayeen hal shay bay kula duwanayeen xisbiga Digil Mirifle waxay qabtay federaal wax la yiraahdo inay gooni u go'do ayay qabtay sanadkii 10 sano wixii ahaane waxay qabtay in 30 sano laga dhigo ay qabtay maxaa yeelay waxay yiraahdeen ummad Soomaaliyeed u baahan tahay waxbarasho xoog leh u baahan tahay maadaama isticmaar ay ku jirtay suuragal uma noqonin fursad waxbarasho saadaradeedii ay ku dadaalayeen inay taas la waafajiyo xisbiga barnaamijkiisa taas oo ahaa